بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. إلهي كيابنا نبي محمد عليه الصلاة والسلام محكمة دوين أفرنتها فريستا. بسم الله الرحمن الرحيم. مدن قدومي قرص ريال شلي waxaan maxkamadda horta keenay 4 eedaysane iyo eedaysane maqnaa kuwaas oo ku eedaysan dhamaantood kamid ahaanshiyaha ururka argixisada al-shabaab kulli hadda gabagabaysaa la yiri nimanka maxkamadda hortaagan waxay maxkamadda horteeda ka qirteen inay ka tirsan urur argixiso waxay maxkamadda horteeda ka qirteen inay laayeen dad tirabeel aan tira lahayn oo ah dadkii oo isugu jira ismadii waxgaradkii saraakiishii ciidankii ganacsatadii haweenkii yani cid ay dhaafeen ma jirto dhammaantoodna waxay ka qirteen maxkamadda horteeda sidoo kale waxay qirteen in yani gacan kaliya aysan ahayn qarax ay intaas soo qarax ay geysteen in ku waxyeeleeyeen dad badan oo muhiimad u lahaa dadka reer Puntland marka xafiiska xiraalintu markaan aragnay gal dacwadeedkan markaan akhrinay dhammaan cadeymaha gal ku jira oo ay ka mid yihiin istiidmanada laga qoray eedaysanayaasha waxaa noo cadaatay in dambi dhacay kuwa galeen ay yihiin 4 eedaysane maxkamadda hortaagan iyo kuwa kale oo aanu gadaal ka keeni doono sida daraadeed maxkamadda sharafta waxaan ka codsanayaa in lagu xukumo dil toogasho ah oo ah ciqaabta dadkii waxgaradka ahaa oo labeenta ahaa reer Puntland oo ay gacantooda ku laayeen maxkamaddu waa maanta maxkamaddu waxa ka codsanaya in la cafiyo ciqaabka lagu bedelo toogashada sharafta waxaan ka codsanayaa cafis madaxweyne maanta waa maalin weyn maxkamadda waxaan ka codsanayaa inay xornimadeeda isiiso cafis ifidiso maxkamad cafis noo fidiso diiwaan waa qareen Axmed Salaad Maxamed qareen oo ah 4 eedaysano maxkamadda hor jooga iyo nin maqnaa waxaan codsanayaa maxkamadda sharafta ka codsanaya oo ku gabagabeynaya nimankaas waa muwaadiniin Soomaaliyeed waxaan sheeg ay yiraahdeen waa maqaleen waa ogeyn maxkamadda waa haysaa waxaan codsanayaa in lagu xukumo oo noo naxariisto iyo dhalinyarada eegayo iyadoo la eegayo wacyiga iyo waqtiga jira in la ku bedelo eeda qodobka labaad farqada labaad maxkamaddu waa mahadsanta maxkamadda darajada koowaad ee ciidamada qalabka sida degmada culus ee shanta gobol bari karkaar Highland iyo Gardafu ujeedo xukun maxkamadeed maanta oo ay taariikhdu tahay 22 bishii 6 2022 waxay maxkamadda darajada koowaad ee ciidamada qalabka sida degmada culus u fariisatay isla markaasna go'aan ka soo saartay dacwad ciqaab ah iyadoo maxkamadda fadhigeeda u dhan yahay isla markaasna uu xeeraaliye ka yahay xeeraaliye maxkamadda ciidamada degmada culus ee shanta gobol sanayaalna ay ka yihiin kow Cabdiraxmaan Ciise Axmed Lahor ina muumino abtidoon 63 sano jir ah jaamac aadan tusbaxle kaarbono ina faadmo faarax 44 sano jir ah ayuub cumar shire biixi magaciisa afkarashada weeye ina johro faarax dalmar 32 sano jir ah cabdillaahi salaad boos mahonge magaciisa afkarashada weeye ina bariiso muuse dirir 28 sano jir ah maxamuud abshir muuse magaciisa afkarashada oliyo ina xaliimo yuusuf maxamed 25 sano jir ah dood dheer iyo fadhiyo badan oo maxkamaddu qaadatay oo loo bari qaatay kadib maxkamaddu waxay soo gabagabaysay fadhiga ugu dambeeyay oo ah maantay oo taariikhdu tahay 22 bishii 6 2022 sidaas darteed maxkamaddu markay aragtay eedda xeeraalinta iyo jawaab celinta qareenka eedaysanayaasha maxkamaddu markay akhrisay dhammaan qoraalada ku jira gal dacwadeedka maxkamaddu markay qiimeysay dooda iyo difaaca dhinacyada maxkamaddu markay ku qanacday qiraalka eedaysanayaasha ay ka horqirteen garsoorayaasha hortooda sidoo kalena ay ka qirteen maxkamadda horteeda maalintii labaad
maxkamaddu markay u caddaatay in eedeysanayaashu yihiin dembiilayaal galay dembiga lagu soo eedeeyey maxkamaddu markay u caddaatay in eedeysane cabdiraxmaan ciise axmed laahoor uu ahaa ninka asaasay shabakadda islamarkaasna xakumay nimankan afarta ah iyo kuwo kaloo xihan islamarkaasna uu ka baxsaday gacanta ciidamada ammaanka maxkamaddu markay aragtay codsiga iyo gabagabadii dhinacyada maxkamaddu markay daalacatay shareecadda islaamka sidaas daraaddeed shanta eedeysane ee maxkamadda afarta eedeysane maxkamadda horjooga iyo eedeysane maqan kow cabdiraxmaan ciise axmed laahoor ina muumino abtidoon 63 sano jir ah jaamac aadan tusbaxle kaarbono ina faadmo faarax 44 sano jir ah ayuub cumar shire biixi ina jahro faarax dalmar 32 sano jir ah cabdilaahi salaad boos mahonge ina bariisa muuse diriir 28 sano jir ah maxamuud abshir muuse olyo ina xabiibo yuusuf maxamed 25 sano jir ah kuwaas oo dhammaantood ay maxkamaddu ku xukuntay dil toogasho ah oo ah qisaastii dadkii ay laayeen waxa ka furan racfaan muddo 30 cisho ah maxkamadduna waa xiran tahay wabillahi tawfiiq